January 2012 waxaynu halkan isugu nimid wax la yiraahdo public meeting ama kulan dadweyne waxaanu anagoo dawladda hoose ah halkan u nimid inaanu idin la socodsiino adeega iyo mashaariicda ummadda aanu qabanno isla markaana aanu maaragtaa idin kala hadalno waajibaadka idinkana leedinku leeyahay wax badan waxay iga dambeyn doonaan farsamayaqaanada ama waaxaha si gaar ah u quseeyaan arrimahan iyo gudoomiyaha deegaanka waxaan maanta anigu halkan rabaa inaan idinka soo jeediyo hadalka in yar baan horta maanta ku leh waxa weeyaan xafiiska intaan joogay waa muddo kooban oo wiilka saddexaad baan ku jiraa waa layga xoogaalsan yahay wax badan waxaan u daysanayaa gudoomiyaha degmada iyo maaragtaa agaasimayaasha waaxaha iyo maaragtaa injineerka waxaan halkan doonayaa inaan ka xasuusiyo mashaariicdan aan doonayna inaan qabanno inayna ku imanaynin waxqabadkoogu annaga oo keliya mashaariicdan in la qabtaay waxa weeye mashaariic badan oo jidad ah oo dadkiina magaalada ka socda hadday yihiin shircadayaal iyo hadday yihiin mashaariic laamiyaba oo ay dawladda hoose iminka faraha ku hayso iyo kuwo ay maaragtaa doonaysaba inay qabato wadartiinoo jidkii isku xidhayay labada laami hargeysa marka laga yimaado qofku markuu gareecow soo dhaafo wuxuu soo galaa laami isaga oo dhibtii iyo diiftii uu ku soo maray dila ilaa inta u dhaxaysa gareecow ay ka muuqato markuu laamiga soo galo nafiso haddana marka uu kontaroolkeena soo dhaafo waxa weeyaan waa ayaan inuu haddana raf kala bilaabo tii dawladda hoose waxay go'aansatay jidkaa inay isku xidhaan laamigiisa jidad kaloo iyaguna magaalada ka socda kuwa halkan ka bilaabmi doona jidad kaloo xaafadaha xalana ka socda oo badan oo jidcadda oo iyaguna aanu doonayna laami inaan saarno markii jidcaddaha laga baxo waxay u baahan yihiin waajibaad annagu waajibaadkaygii diyaar baanu la nahay halkanna waxaan usoo fadhiisanay inaanu idiin sheegno inaanu hawshaa diyaar u nahay laakiin waxaan dadweynaha ogeysiinaynaa hawshaasi inayna qabsoomaynin la'aantii waxaa laydinka doonayaa cashuur baa laydinka doonayaa oo waajib idinku ah cashuurtaasi waxaa ka mid a cashuurta beeraha waxaa ka mid a cashuurta jagooyinka bannaan waxaa ka mid a ardiyadaha waxaa ka mid a liisanka waxaa ka mid a cashuurta suuqyada intaaba waajibaad idinka idin saaran weeyaan inaad gudataan oo aad cashuurta bixisaan cashuurta marka aad bixisaanna annagana waxaa nagu waajiba cashuurtaas inaanu idinku soo celinno sanad kasta inaanu idinku soo celinno laba hab baanu idinku soo celinaa cashuurta mar waxaanu idinku soo celinaa adeeg hufan oon maalin kasta bixinno adeeg hufan oon maalin kasta bixinno oo ay nadaafad ka mid tahay oo ay howlgallada nabadgelye ee magaalada ka mid tahay oo ay ka mid tahay ilaalinta xuduudaha maaragtaa jagooyinka iyo maaragtaa beerihiinaba mar labaad bay haddana idinku soo noqotaa oo waxay idinku soo noqotaa horumar waxqabad bay idinku soo noqotaa wixii adeegaa ka soo hara iyo mushaarka shaqaalaha idin adeegaya waxaanu haddana ku bixinaa horumar oo jidadkan baxaya eed arkaysaan iyo waxyaabahaana ka shaqaynaynaaba iyaguna waxay ku yimaadaan cashuurta aan idinka qaadayno marka waxaa la doonayaa in idinkuna waajibaadkiinna cashuureed aad bixisaan waxaanu gallay iminka dadaal badan oo dad badan biilashii jagooyinka bannaan ay haystaan waxaad ogtihiin jagooyinkan bannaan inuu ninku maalintuu iibsaday bangi in laga dhigtay cashuurna kuma socoto waxay cidhiidhi ku geliyeen xitaa dadkii danyartaa ee jagooyinka iibsan lahaa ayaa dadkii hantida haystay lacagtoodii oo dhan waxay geliyeen jagooyin bannaan ninbaa 100 jago leh 100 jago dawladda waxba kagama soo celiyo xuduudoodii baanu ilaalinaa sharcigoogii baanu u sugnay hakee laga keenayaa lacag haddii cashuurta dalka la bixin waayo waxaan maanta idiin sheegayaa nin weyn iyo nin yarba cashuurta inaan cidna lagu ixtiraami doonin anoo kaga faa'iidaysanaya shaqada dawladda hoose aan mas-uulka uga haya cashuurta dawladda hoose waa muqadis annagana waxaan diyaar u nahay inaan lala xisaabtamo halkaas sidaa inaad sanad walba aan isku soo joogsanno oo wax alla waxaan dawladda hoose u qabanayna iyo waxaan faraha ku haynaba idiin sheegno wax alla waxa su'aal la diyaar la tihiinna inaanu idinka jawaabno ayaanu diyaar u nahay idinkana waxaanu idinka rabnaa cashuurta inaad bixisaan hadday guri tahay iyo hadday jago bannaan tahayba awal jagooyinka bannaan lama qaadi jirin laakiin sanadkan waxaanu idiin sheegaynaa jagooyinkii bannaanaana inaan usoo dhiganno oo ardayaddii lagu leeyahay aan idinka doonayno in beerihii iyaguna sidaasi lamid ah jagooyin cashuurtii lagu lahaa ardayda aan idinka doonayno wixii kale wax horeyba u socon jiray baahayd waxaan idin la socodsiinaynaa labadaasiba inay ku soo biiraan ninkii cashuurta bixin waayeen xeerka iyo maaragtaa waajibaadka maaragtaa naga saaran iyo maaragtaa wixii aanu u cuskanayna sharcina siinaya inaanu u cuskan doono waa waqti gaaban ma doonayo wax badan oo dambe inaan kusii dheeraado waxaan uga baxayaa hadalka intiisa badan dadkii maaragtaa sii joogay ee iiga xoogaalsanaa
maadaama xafiiska muddada aan ku suganahay badee ay tahay muddo kooban haddana intaan ka ogahay iyo waxyaabaha aan doonayno inaan qabanno waa intaas waxaan idinka doonaynaa inaad idinku fulisaanna waa intaa in hadalkii intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu